Ara sonra tekrar ikinci uçağımızı buraya getirerek yaralıları nakletmek durumunda kaldık. Okay. Waqti yar kadib waxaan mar kale keenay diyaarad oo qaadaysa dad dhaawaca. Biliyorsunuz yaklaşık 2 hafta önce büyük bir patlama meydana gelmişti. O zaman da buradan hastaları nakletmek için yine böyle uçak getirmiştik. Sidaa la socotaan ku dhowaad 2 isbuuc ka hor waxaa dhacay qarax weyn. Sidoo kale waxaan keenay diyaarad qaadaysa dhaawacyadii ku dhaawacmay qaraxaas. Tabii bu sefer tek tesellimiz bu patlamada hiç kimse ölmedi. Hiç kaybımız yok. Fookadii hore ama qaraxii hore dhacay 2 isbuuc ka hor wuxuu uga duwan yahay qaraxan ilaahay mahadiisa wax geeri ah ma jirto. 9 tane yaralımız var. Bunlardan 3'ü Türk, 6'sı Somali vatandaşı. Onlar inşallah ilk tıbbi müdahale burada yapıldı. Daha ileri sağlık hizmetlerini almaları için Türkiye'ye gönderiyoruz. Waxaa jiro 9 dhaawac oo 3 ka mid ah ay yihiin muwaadiniin Turki ah, 6 ka mid ahna ay yihiin Soomaali. Gargaarkii degdega waxaa loogu qabtay halkan si ay u helaan caafimaad horumarsan yaa maanta waxaan u qaadaynaa Turkiga. Birkaç gün hastalarımızı burada tuttuk çünkü stabil hale gelmeleri gerekiyordu. Qarax markuu dhacay kadib hal ama 2 maalinaan sugnay si ay dhaawacyadu marka hore ay u nastaan oo ay waxaa waaye u soo gaaraan heer ay diyaarad ku safri karaan. Tabii bunlar bizi üzüyor ama biz faaliyetlerimize Somali'de devam edeceğiz. Somali'nin her zaman yanında olmaya, Somalilerle birlikte durmaya devam edeceğiz. Dabcan waa na murjinayaan ama waa na murugagelinayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah laakiin hawlaheenu waa sii socon doonaan. Hawlaha aan Soomaaliya ka wadno marnaba ma istaajin doonaan. Bizim çok sağlam kardeşlik temellerimiz var. Bu temelleri bu tür şeyler sarsamaz. Waxaan leenahay walaalnimo ku dhisan ama walaalnimo leh saldhig xooggan. Marka walaalnimadan si sahla ama si basiira laguma waxyeelayn karo. Bütün yaralarımıza geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Dhammaan dhaawacyada waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah. Teşekkür ederim.